maalintii labaad maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Cumaan iskaashanaya wasaaradda gargaarka ayaan deeq raashin ah loogu talagalay dadka ku nool magaalada Muqdisho kuwa danta yar ah ee naga soo gaartay dawladda Cumaan aan ku bixinaynay 17 degmo gobolka Banaadir shalay 6 degmo ayaan gaarsiinay maantana 12 kale ayaan kormeer ku mareynaa aan gaarsiinayna raashinkaasiti waxaan leeyahay dawladda Cumaan oo mar walbaba nala garab taagan bulshada ku nool Soomaaliya ama caasimadda sidii wax u soo gaarsiin lahaayeen ajri xasanaad Allah ka siiyo raashinkan waa raashinkii loogu talagalay bishii barakeysneed ee Ramadaan dib u dhaca ku yimid awgeeda haddana la gaarsiiyay dadkii mudnaa ee deganaa magaalada Muqdisho cid walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka qayb qaado caawinaadda dadka Soomaaliyeed lala garab taagan yahay qof kasto wax Ilaahay u dhiibayna waxaan leeyahay walaalka baahan ogow walaalka baahan ina waxa ku baxsata bari ayaa helaysa waxa maanta dhiibato bari ayaa helaysa marka waxaan rajaynaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir cid walba oo dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan aan gacanteena gaari karta ama gacanta walaalba inaan kala qayb qaadano insha Allah waxaan rajaynaa inaan wadankeenana oo dhibaatada iyo burburka iyo dhibaatada Allah ka saaro marxalad fiican ah hadda mareynaa meeshaan joogno meel ka wanaagsan waa rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah qof kastana waxaan leeyahay walaalkaaga baahan ogow sida aad bulshadii iyo shacabka dawladaha aan walaalahana ama islaamka ay yihiin ee nala soo garab taagan yihiin adigoo muwaadan ah wax Ilaahay ku dhiibayna walaalkaaga baahan ha moogaan balanteena waa inaan iscaawino balanteena waa inaan isgarab qabano balanteena waa kan dhiban oo walaalkeena ama kan jiran inaan qaadi karno daaweyn karno waa mahadsantihiin